xildhibaanada sharafta leh sida uu qorayo qodobka 64aad ee dastuurka ku-meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida uu qorayo xeeroosaadka golaha shacabka qodobkiisa koowaad faqradiisa saddexaad maanta waxaa meesha nala fadhiya halkaan nala fadhiya xildhibaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaheenii hore sida aad ka warqabtaan laga soo bilaabo taariikhda markay ahayd 2000 burburka kadib dowladihii ku-meel gaarka ah iyo dowladdii asaga madaxweynaha uu ka ah 2012 waa madaxweynihii keliya ay wada dhammaysteen asaga iyo baarlamankii sagaalaad iyo madaxweyne xasan sheekh way wada dhammaysteen taariikhdii dib haddaa u ogtaan marka sharafay noo tahay karaamay noo tahay in qodobkaasi maanta sida uu yahay loo fuliyo asagana uu u fuliyo halkan uu soo fariisto inuu ka mid noqdo golaha shacabka tirada golaha shacabka oo hore sida dastuurka uu qorayo 275 uu ku yahay 276 mudane xildhibaan soo dhawow ajandaha naga maanta waxaa laga doodayaa xeeroosaadka